kulanti wacan oo wanaagsan intana daawanaysa idlahaantiinba meel kastoo aad joogtaan waqti kastoo idin tahay si kastoo aad noo daawanaysaan dabcan waqtiyadu way kala duwan yihiin wadamaduna way kala fog yihiin qaar bay habeen u tahay qaarna waa maalin cad oo dharaara si kastoo idin tahay waqti kastoo aad joogtaanba kulanti wacan oo wanaagsan waxaad daawanaysaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed stuudiyaha magaalada London sidoo kale waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda radio Muqdisho si toos ah waa barnaamijkii falanqaynta waa anigoo ah Cabdirasaaq Socoto barnaamijka falanqaynta ayaynu ku soo qaadanaa qodobada markaa taagan ee u baahan in la turxaan bixiyo ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya sidoo kale arrimaha qurba joogta toddobaadkan waxaa maanta marti igu ah barnaamijkan oo igala qayb galaya gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Faarax Laqanyo oo booqasho ku jooga dalkan Ingiriiska magaalada London waa markii ugu horeysay ee gudoomiyuhu u yimaado magaalada London tan iyo intii uu qabtay jagada gudoominimada gobolka Hiiraan dabcan dad badan ayaa u dhuunduleela gobolka Hiiraan oo ah gobol muhiim ah oo ku yaala oo muhiim ah halbowlana oo ahaa soo jireenkii nabadda Soomaalida sidoo kale uu ahaa meel muhiim ah ciidamadii qalabka sida ee Soomaaliya amniga Soomaaliya dad badan ayaa ka dhowr sugay gobolkaasi sida ay xaaladiisu tahay iyo sida ay hadda nidaamkiisu ku socdo waxaan jecelnahay inaan su'aalo badan la wadaagno oo weydiino gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Faarax Laqanyo dadkuna aan jecelnahay inay iyaguna afkaartooda ka dhiibtaan xagga telefoonka shaashada ku qoran insha Allah hadii baraali ka noqdo mudane gudoomiye Cabdi soo dhaweeyo aad ma santahay sida aan sheegay dad badan ayaa aad iyo aad uga dhur sugaya maamulka gobolka Hiiraan oo ah meel muhiim u ah Soomaaliya goboladeedii oo la aaminsan yahay gobolka Hiiraan inuu isku xire u yahay goboladii waqooyi kuwii dhexe iyo koonfurta haddana waxa lagu tilmaamaa gobol baaxad weyn oo ku fadhiya dhul aad u badan ilaa 4 gobolna xuduudo leh bal waayadii dambe inkastoo ay joogeen ciidamadii walaalaha reer Jabuuti oo nabad sugidda ahaa ammaanka ka qayb qaadanaya waa sidii xaaladda guud ee amniga gobolka oo dad badan ay ka dhur sugayaan in wax laga bedelay bismillaah wal Socoto iyo bahda SNTV runtii aad baan idinkaga mahadcelinayaa barnaamijkan haddaan soo laabto su'aasha amniga gobolka Hiiraan saa sheegtay gobolka gobol runtii aad u muhiim ah istiraatiiji ahaan Allah subhanahu wa ta'ala meesha uu dhigay iyo dadka degan markaad fiiriso waa meel muhiim u ah dal ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaa degan Soomaali aad u badan oo runtii meesha ku wada nool 23 sano oo burbur ah iyo maamulo kala duwan oo runtii qaabo badan u soo shaqeeyay ayaa soo maray xagga amniga maanta runtii waxa la dhihi karaa wax dhiman way jiraan laakiin inta amniga oo magaalada Beledweyne ilaa Matabaan runtii waxa la dhihi karaa amniga ka jira waxa way dhacdooyin way dhacaan hase yeeshee waxaan dhihi karnaa amni wanaagsan ayaa ka jira waxaan rajeynaynaa waxyaabaha dhiman insha Allah inaan dhamaystirno dabcan sida la ogsoon yahay gobolka Hiiraan dad kala duwan oo Soomaaliya dagaalada ayaa soo dhibaateeyay qabaa'ilo kala duwan dagaalo colaado sokeeyay ayaa ka jiray ma jiraan wax nabdayna oo soo dhaweyn dadkii beelaha deegaanka Hiiraan aad wax ka qabateen runtii sidaad og tahay markii la soo doortay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu runtii 6 qodob oo dalkan in lagu hogaamiyo ayaa miiska la soo saaray anagu runtii anagoo og amniga iyo dabeeshiisinta inay 2 qodob oo muhiim ah gobolka markaan tagnay 9kii bishii afraad ee sanadkii hore waxaan qodob koowaad oo aan runtii miiska saarno waxa xagga amniga iyo dabeeshiisinta iyo walaaleynta dadka gobolka dega labadaas qodob runtii waxaan ugu nimid meesha iyadoo runtii dhibaato xoog leh ka jirto xagga isdhexgalka bulshada dareen colaadeed ee meesha ka jirtay walaaleen heel walaal oo runtii meesha nooga soo horeeyay maamul ahaan isku dayay in ay ururiyaan maleeshiyaadkii qabaa'ilka iyo hubkii odayaashii dhaqanka in la isbiirsaday walaalihii heel walaal iyo dhaqankii odayaashii waxgaradka gobolka oo ciidan tiro fiican ururiyay ayaan u nimid halkii ayaan ka sii wadnay waxaan miiska saaranay inaan kordhino ciidamadaas anagoo markasta ciidan walaaleen heel walaalay diyaar noo ahaayeen
dhanka kalena ciidamadii kordhintoodii iyo wanaagoodii ka sokow haddana dhanka kalena waxaan ka wadnay dib heshiisiin waxaan ku bixinay waqti aada u badan waxaan ku guuleysanay inaan shaksi ha noqoto beelaha ha noqoto inay wax badan dadkii maanta isaga dhow yihiin reer hiiraan si nabad oo aaniya nabadana lagu wada nool yahay maanta insha allah ma jiraan marka odayaal idin diiwaan gashan oo marka dhacdooyin ay dhacaan kusoo baxa oo idinkoo aada idinla shaqeeya oo beelaha ka tirsan aada iyo aad hiiraan waxaa weeye qabaa-ilada oo dhami waxay leeyihiin odayaal dhaqmeed runtii u taagan muddo dheerna soo shaqeeyo aada moodo 23 burburka jiray sano inay soo shaqeeyeen waxaa kaloo jira guddi odayaal dhaqmeeda oo golaha marjaca runtii ama golaha dhaqanka beelaha soomaaliyeed ee gobolka degan oo tiradoodu 63 tahay runtiina taariikh dheer muddo ilaa 94 la aasaasay ilaa maantana shaqeynaya runtii iyagaas oo nabadoono badan laga dilay al-shabaab ay beegsadeen markastana u taagan inaanay shaqadaas joojin wax alaali wixii ummadda reer hiiraan danaheed ahna mar kasta u taagan wiigii 3 maalmood shira meelay ku shiraan leh talada iyo wax alaali wixii wax lagu maamulayana runtii wax ku leh fikirkoodana aan runtii wax weyn oo noo taray mar kasta waa gartay waxaad ka dhawaajisay habeen dhoweyd mar aada la kulantay jaaliyadda reer hiiraan in gobolka hiiraan ay u dhan yihiin dhammaan ciidamadii inay dhisan yihiin oo aysan gobolada koonfurta gobolka keliya u yahay waa kuwa ciidamadaas maxay yihiin runtii waasaan kuu sheegay ciidamo yar ayaan ugu nimid meesha oo tira runtii ilaa 300-400 meelahaas oo walaaluhu markaas ururiyeen hiil walaal annagu markaa maadaama amni haddaad maqasho waa ciidan haddaanu ciidan jirin amni ma jiro maamul ahaan waxaa xooga saarnay inaan ururino ciidamadaas annagoo markasta la kaashanaynaa waxgaradka qabaa'ilka si loo ururiyo ciidan loo wada dhan yahay oo reer hiiraana ciidankaas runtii maanta waa tiro fiican militarigan ku bilownay waxaan ku xijirnay booliska waxaa ku xigay ciidanka nabad sugidda iyo asluubta marka waxaan dhihi karaa waa gobolka keliya oo ay u jiraan 4 ciidan qaranku lahaa oo runtii tayo fiican leh tiradoodu ha yaraato tayo fiican leh oo shaqeynaya oo moogtahay waajibaadkoodii gunaya dhammaanna ciidamadaas waxaa tababarkooda iyo ururintooda iyo wax walbaba runtii gacan naga siiyey ciidamada walaalaha ee reer jabuuti ee magaca amisom ku jooga shacabka reer hiiraan ee u yaqaanaan hiil walaal ciidamadaasi xaggee ku sugan yihiin ma gobolka ma degmada beledweyne oo keliya mase degmooyin kale xageeba ku sugan yihiin ciidankaasi xarunta ugu weynay beledweyne ku sugan yihiin inta badan hase yeeshee militarigu ama booliskuba labadaasi waxay ka howlgalaan meel alaale meeshii amni xuma ka jirto ayay tagaano waa ciidan xero ku jira maahan waa ciidan shaqeeya ama magaalada beledweyne gudaheeda ha noqoto ama degmooyinka iyo tuulooyinka kaleba ha noqotee way ka shaqeeyaan tuulada matabaan degmada matabaan oo kale waxaa ka jira iyadana ciidamo boolisa iyo ciidamo nabad sugida oo ayagana runtii abaabulan oo iskood u shaqeeya oo aada moodo runtii iyadoon wax dhaqaalo ah iyo wax fan aan lagu siin in dadka degmada jooga maamulka degmadu inay dadaaleen ciidankaas sameeyeen maamul ahaanna waa wada xiriirno hadda waa degmada keliya oo maaragtay gobolka xorka ah marka laga fiiriyo marka laga reebo beledweyne marka insha allahu waan gaarnaa nabadda matabaan ilaa iyo intuu dhexaysa beledweyne dad badan oo gobolka degan weli waxay aaminsan yihiin in degmooyinka qaar aanay xor ahayn oo uusan gaarin nidaamka iyo maamulka gobolka hiiraan oo adigu madaxda ka tahay maxaa hortaaga in la gaaro maxayse tahay qorshaha aad damacsan tihiin waa run 3 degmo degmada buulabarde jalalaqsi iyo maxaas 3 degmo weli waxaa gacanta ku hayay nimankii nabadiidka ahaa qorshe muddo soo socday ayaa jira annagu ka gobol ahaan ilaa bishii 9aad diyaar baan ahayn ciidankeena annagii hiil walaal inaan qabanno degmooyinkaas hase yeeshee arrimo farsamo oo xag military dowladda dhexe aan ka sugaynay ayaa xoogaa dib u dhigmay dib u dhacaasu yimid haddana runtii waxaan ku faraxsanahay sidaad la socotaan in maanta ay gabagabowday shalay saad arkayseen ciidamada amisom la soo kordhiyey oo diyaaru ah oo ciidamada etoobiya oo markii horeba
ahaa kuwii al-shabaab 2 sano ka hor ka saaray magaalada beledweyne sidiibana u joogay in ay haddana ku soo biireen ciidamada amisom oo ay diyaar u yihiin in ay ka qayb galaan sector 4 oo ciidamadan jabuuti hore u joogeen inay iyaguna soo xoojiyaan si mar dhow looga saaro degmooyinka dhiman guud ahaan soomaaliyaba gaar ahaan gobolka hiiraan waxaan ugu bishaaranayaa ummadda reer hiiraan ama guud ahaan ummadda soomaaliyeedba in shabaab waqtigoodii dhammaaday runtiina laga cirib tiri doono dalka guud ahaan waa gartay dabcan waxaad ula jeedaa ciidamada etoobiya hadda iyo midii ciidamada lasoo kordhiyay inay qaadi doonaan tallaabooyin cusub marka laga soo laabto ama xoreynta kadib dowladda dhexe waxaa jira goboladu waxay ku leeyihiin qoondayn xagga miisaaniyadda ah sida sharciyana ah hay-adihii dowladda maxaa idinka soo gaaray wasaaraddii waxbarashada wasaaraddii caafimaadka ma jiraan howlqab la taaban kara ama xafiisya ma ku leeyihiin gobolka hiiraan wasaaraddii arrimaha gudaha tii caafimaadka iyo waxbarashada oo kale runtii sidaad ogtahay dowladda kumeel gaarka dowladda federaalka soomaaliya waxa weeye in muddo ah waxaa lagu howlanaa sidii loo gaari lahaa gobolada annaga gobolka hiiraan ilaa hadda ma jirto wasaarad si rasmiya inta u timiday xafiiskii furatay shaqaalihii qoratoo shaqaynaysa run ahaantii waxyaabaha haddaan isleeyahay way ka dhaman yihiin gobolada inay gaaraanna waxaa ka mid ah in wasaaradihii oo dhamme ay gobolada tagaan ka shaqeeyaan waxaan rajeynayaa sanadka cusub sida qorshuhu yahay inay imaan doonaan dhammaan hay-adihii dowliga ahaa wasaaradahan la badiyey dowladdan la fidiyey in runtii ay imaan doonaan gobolada xafiisyadoodii iyo maamulkii ay ku lahaayeen gobolka berisamaadkiina ay sidoodii soo noqon doonaan insha allah laakiin maanta wax dowladda ka socda hay-adaha dowladda oo ka shaqeeyaa ma jiraan waxaan mar walba aragnaa inuu soo gaari jiray wasaaradda gaashaandhigga inta ugu badan wasaaradaha kale maxaa hortaagan in wasiiradu ay yimaadaan gobolka oo maadaama ciidamadii amniga ay joogaan oo agabkii o dhan kale amniga u sugan yahay in ay soo gaarsiiyaan adeegii hay-addii sida caafimaadkii waxbarashadii iyo wixii la halmaala runaantii gobolka hiiraan booqashada dadka madaxda ku yimid aaday u badnaayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka mid ahaa wasiirkii arrimaha gudaha yimid wasiirka kheyraadka yimid wasiirka gaashaandhigga yimid wasiir ku-xigeenno badana yimid xildhibaanaa yimid runtii madaxda soo booqatay aaday u badnayd howlo badanna waa laga qabtay gobolka si maaragtay loo dhiirigeliyo dadweynaha ku nool gobolka hase yeeshee waxaa muhiima in wasaaraddii timaado oo la yihahdo wasaarad hebla xafiiskeeda halkaas ku yaala oo subaxii qofka u shaqo tago ciddii shaqo doonaysa ay halka applicationkii u qorato taana insha allah waa la gaari doonaa mar dhow waa tahay aada mahadsan tahay qof baa ku jira taleefonka dadweynahan jecelnaha inay nagala qayb qaataan aada mahadsantihiin waxaan jecelnahay inaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan si toosa oo su-aalaha ku aadan gobolka hiiraan maadaama uu nala fadhiyo gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdi faarax laqanyo oo booqasho ku jooga magaaladan london dabcan hore ayuu u degnaan jiray laakiin intii talada qabtay waa markii ugu horeysa u yimaado waxaan isku eegi doonaa sidaan hore u sheegay barnaamijka qeybtiisa hore xaaladda guud ee gobolka hiiraan iyo degmooyinka uu ka kooban yahay xagga amniga waxbarashada caafimaadka iyo xoreynta degmooyinka dhiman weli ay haystaan al-shabaab waxaan jeclahay qofka ugu horeeya xagga taleefonka halow السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله والله المقعد هلكا كسو هلس والله المقعد جمال جمال ميا جماد هي جماد حاجة كسو هلس لندن ولا شيء جماد ومقعيدي قبل كهيرين لو يقينا مرنا هي جماد هذا سنة سفيان ما كنت مية أدوى الإسلام سلام الله سلام الله waxaan rabay laba su-aal la weydiiyo gudoomiyaha waa garta su-aasha ugu horeysa waxa waaye soomaaliya hadda gobolada ayaa loogu rabaa in cid walba gobolkiisa maaragtay ay ka samaysato maamul goboleed oo marka hiiraan waa ku dhawayn inkastoo inay gacanta ina ku dhahaan maxaan ku sheegaa gudoomiyaha una ka qalin oo beledweyne bas ay ku kooban yihiin ma ku tala jiraa in uu maaragtay uu maamul goboleed la sameeyo oo hiiraan
midda kale maxaa hortaagan in dadweyne bas lagu koobnaado oona maxaan ku sheegaa oo goboladii kale sida dulubutoo kale maxaas allafti ayna maarata maamulka oonu dhaafsanayn gobolka hiiraan macnaha beledweyne u dhaafsanayn waay aada umahadsan tahay jamaad waa mahadsantahay su-aal kale waxaa jirta gobolka anaxaas waxaa ka dhacay sida maxaan ku sheegaa lagu dilay cumar xaanshi maxaan ku sheegaa sorry xaanshi xuseen iyo niman kaloo badan maamulku waxbuu ku og yahay maxkamadna waxba qof lama soo saarin taas inuu jawaab naga sii jeclaalahay gudoomiyaha soo mahad waaya aada umahadsan tahay labadaas waa ka jawaabeynaa waxaan jeclaan laynaan xagga t v-ga naga dhagaystay insha allah su-aalahaas jawaabtooda jamaad waa mahadsan tahay arrintan federaalka siaad ogtahay soomaaliya waxaa ka jirta dowlad federaala dastuur kumeel gaara oo federaal ayaa jira ummadda reer hiiraan ama ummadda soomaaliyeedna waxaa u furan in ay samaystaan wax laalay wixii iyaga dan u ah federalismkuna waxa weeye noocuu noqonayo iyo sida laysku raacraacayo qodob ka mida wuxuu leeyahay federaalka waxaa noqon kara laba gobol oo iskood u heshiiyey ama wixii ka badan oo isku israacay ayaa federaal noqon kara marka reer hiiraan federalismka u furan yahay ayagayna jirtaa wixii ay samaysanayaan waxaanan filayaa hadda inuu jiro baraarug noocaasa waanan filayaa in federalismka uu gaari doono gobolka insha allah su-aasha kale ahayd dhacdooyinka dilalka ah ee soo baxay runtii waad ogtihiin wax kastoo dhaca waxay u baahan yihiin cadaaladna waxaa lagu gaari karaa in wax la baaro oo laga gun gaaro wixii dhacay runtii shalalkii dhacay oo hadda dilkii oo u dambeeyey ciidamada ka dhex dhacay oo cornel xaashi u dambeeyey baaritaan heer qaran ayaa socda arrintaasna runtii waxaan jeclaan lahaa in laga dhul sugo si cadaalad loo helo oo qofna loo dulmin in baaritaankaas laga dhul sugo waqti kasta ha qaato ciday ku cadaatana waxaa lagu qasbanaan doonaa in sharciga la mariyo insha allah aada mahadsantahay qofka xiga ayaan isku daynaa telefonka insha allah halow asalaamu calaykum halow ma maqlaysa si fiican waa idi salaamay waa si fiican idi maqlahaya waa kaa qaadna walaal magacaagii halkaa kasoo hadlaysa walaal magacayga cali baa la yihahdaa waxaan joogaa magaalada birmingham cali oo birmingham jooga waa magaalo ka baxsan london dalka ingiriiska haye waa idi salaamay runtii codkaan ugu yaraa adoo raalli haddaa kor hadli karto walaalow waxaan rabaa runtii aniga gobolka hiiraan waxaan tegay adiga 3 bilood ka horaan moogahay magaalada beledweyne inta laga dheeri karo haye magaalada beledweyne 3 bilood ka horaan moogahay waana guddoomiyaha joogana waa tegay laakiin isma arkin laakiin ruuxa deeply magaalada ku dhex jiro oo mataqaanaa shacabka ah wuxuu dareemi karaa meesha ay wax ka jiraan magaaladaas waxaan ku soo arkay wiraan 63 masaajid oo aan isku xirnayn waxaana muhiimaddu ay tahay masaajid nin kasta masaajidku jooga asaga ayaa wuxuu ka yahay siduu rabo u akhriyaa tafsiirka aayadda qur-aanka ah maxaa diiday in si markee wactasimu bixablillahi jamiican walaa tafaruqu ayaa ilaahay qur-aankiisa ku yidhi meel ahlu sunna ayaa masaajid calan uga taagan meel qolo tabliiq ah calan uga taagan 3 habeenkii marka la gaaro waxaad maqlaysaa 300 adin oo kala nooca qaar waa rabbi salli qaadahayaan qaar waxay qaadahayaan quraan akhrinayaan maxaa diiday in majmuuc ay samaystaan oo ah salaadii xilliga dal tukanayay ay ku heshiiyaan gudoomiyuhuna waa ogyahay runtii arrintaas midda kale gobolka hiiraan wuxuu ka mid ahaa 8 gobol Soomaaliya ugu horeeyay gobollo aan degmooyin iyo tuulooyin ahayn ayaa waxay dhaleen 3 gobol ama 4 gobol oo kale marka gobolkaas asaga madaleys miyaa ko maxaa hortaagan asagoo xadaarada intaas leh oo
soomaaliya gobolada dhexoo dhan ay u imaan jireen inay musawir ka galaan ninka magaalada gaalkacyo ka yimaada foto beledinu ka geli jiray musawirka markuu secondary aadayo maantana waxa waaye weli waxaa moodaa in qabrigu qori la saaro maahan qori ka qaad mala u taagan yahay maxay ku dhacday ma dadka liita gobolka waa ogahay inuu barwaaqo ka jirto oo istiraatiiji yahay maxaa hor taagan dadkaas ayaga ah waaya aad u mahadsantahay cali waxaan jeclaa inaad xagga tv-ga nagala socoto cali waa mahadsan tahay arrinta masaajidada iyo umuuraha diiniga ah runtii waxay ku fiicnaan lahayd waa su-aashii hore u tiil oo ahayd wasaaraduhu ma gaareen gobolada hadday caasimada muqdisho tahay iyo hadday gobolada tahayba wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayay caalamul islaam markaad aragtaan ama soomaaliya bay ahaan jirtay in ay maareeyaan arrimaha masaajidyada waktiga la aadaamayo waktiga xafladaha la qabanayo diiniga ah laakiin nasiib daro 23 sano oo dalku bubur ku jiray saad aragtay waa runtaa caliyow jaantaaragon ayaa dhacday diinta iyo masaajidda keliya maahee de ummadda soomaaliyeeda nin waliba wuxuu raba iska sameeyaa u baahan in dib loo saxo oo qaran dumay oo dhammaantiis in dib loo saxo u baahan ayaa meesha yaala marka runtii waxaan rajeynaynaa in wasaaradda garsoorka arrimaha diintuna soo gaarto in waxyaabahaasoo dhamay in la habeeyo waa u baahan yihiin waana qalad jira waan aragnaa runtii hase yeeshee bal amnigii annagu hadda waan la tacaalaynaa waa amnigii in ummaddu amni hesho wasaaradihii iyo dowladdii meelay ku shaqaysan la helo waxaan rajeynaynaa arrintaas way muuqataa sixitaankeedana insha allahu waa wasaaraddana waa aaminsanahay inay aaminsan tahay in caasimadda ka bilowdo gobolladana gaari doonto tan gobolka hiiraan inuu ahaa 8 gobol weliba gobolkii uga qadiimsanaa ee aan weligii la kala qaybin kadib markay farcameen gobolladii kaleo ay 18 gobol noqdeen dastuurka hadda kumeel gaarka noo qoran wuxuu sheegayaa in la aqoonsan yahay oo keliya 18 gobol baarlamaankay u taalaa xildhibaano badan oo 40 ku dhow ayaan ku leenahay gobolka hiiraan 7 wasiir oo ka soo jeeda gobolka hiiraan ayaa wasaaradaha ku jira anoon lahayn ama aan ku talinayn koleyba inay cadaalad darro sameeyaan oo ummadda soomaaliyeed ama mb u yihiin ama ay wasaarada u yihiin haddana waxaan leeyahay reer hiiraan wax alaali wixii iyaga danu ugu jirto ummadda soomaaliyeed danu ugu jirto inay iyagu caqligooda maskaxdooda inay haddii guda joogaan iyo dibad joogaanba inay miiska soo saaraan dowladda federaalka hadda waxaa u qorshaysan in gobolada loo sameeyo maamul ay iskood isku soo doortaan gobolka hiiraan muddo 2 bilood ku dhowaada waxaa ka socday wada tashi hakad yar ayuu galay kadib markii dowladda dhexe waxoogaa isbedelkii uu ka jiray waxaan rajeynaynaa ballantu ahayd in lasoo noqdo doorashooyinkiina ay dhacaan waxaa kaloo option ah oo runtii annagu maamul ahaan aan u soo jeedinaynaa reer hiiraan xaq bay u leeyihiin reer hiiraan in ay soo jeediyaan wax kale oo cuntama reer hiiraan oo fikir ah oo ay ka gadaan si sharciya oo aan fawdo ahayn baarlamaanka golaha xukuumadda inay ka gadaan anigu reer hiiraan haddaan nahay waxaan iyo waxaan ay sidaan aan doonaynaa wixii loo dhan yahay oo aan tafaraaruq ka jirin oo ay reer hiiraan isla wada gartaan annaguna maamulahaan waa soo dhaweynaynaa waxaan rajeynaynaa baarlamaanka iyo xukuumadduna inay soo dhaweyn doonaan insha allah sida uu cali sheegay oo birmingham jooga dad badan waxay aaminsan yihiin gobolka hiiraan inuu yahay gobol xadaarad leh aada u weyn dadka tirada dadka ku noolna ay aada u fara badan yihiin mar walba hami baa loo hayay inuu noqdo gobol hormuud ah waxaad ka dhawaajisay inay jiraan isku day la rabo in maamul lagu sameeyo oo hakad geliyey marka siduu ahaa muxuu ahaa nidaamkaas aad dooneysaan maxaa la doonaya lagu sameeyo runtii barnaamijkan la sameynaya waa barnaamij sharci oo wasaaradda arrimaha guduhu soo diyaarisay baarlamaanka la soo mariyey madaxweynuhu dekereeta ku soo saara oo ah barnaamij samaysashada maamulada deegaanada oo ah kasoo bilaabmayo tuulo ilaa degmo degmadoo kale in ay soo xulato ay isku yimaadaan ergo ilaa 100 ah 100kaas degmada isugu timiday in ay soo xushaan tiro council ah oo 22 oo shuruudo leh 22kaas markay isku yimaadaan inay iska doortaan gudoomiye ku-xigeen iyo sida nidaamka ogol yahay
marka degmadu dhisanto oo gobol walba for example gobolka hiiraan waa 5 degmo 5 degmo markii golaha kaunsilada degmooyinka la dhiso in markaa council kastoo degmo oo 5 qof u dirsado heer gobol 4 qof sorry 4 qof inuu u dirsado heer gobol degmooyinkii kaunsiladii ka yimid oo heer gobol u soo gudbay in ayaguna ay doortaan gudoomiyihii gobolka iyo ku-xigeenkiisii iyo xoghayaashii marka nidaam ka yimid tuulo ka soo bilowday degmo soo maray degmo ka soo gudbay gobol yimid roolkaas asiga ah waxaa shaqo ku leh inay qayb ka qaataan waxgaradka wadaasha dhaqanka waxaa qayb ku leh wasaaradda arrimaha gudaha waxaa qayb ku leh baarlamaanka xibno ka socda waxaa qayb ku leh maamulka markaa meesha ka jira kolba afartaas in ay dusha ka eegaan ama ay ka shaqeeyaan sidii barnaamijka asiga ah si cadaalada oo nabadgelyo ah oo ummaddu u wada dhan tahay oo maaragtay aan isku takrafalin oo wax isku ogolaasho ah ummaddu raalli ka wada tahay in ay gobolka maamulkiisa ku dhismo qorshuhu noocaas weeye waa heer qaran maaha wax gobolka keliya loogu talagalay gobolada dowladda oo ay maaragtay maamulasho oo dhan iyo dalka oo dhan in la gaarsiiyo qorshuhu yahay goormee lagu wadaa inuu qabsamo marka hadda ma la sii wadaya mise meeshiibu ku istaagay qorshaha noocaas kolleyba un wasaaradda arrimaha gudaha iyo kolley waxaan ka warsugaynaa ilaa hakad baa galay waa la joojiyeen lama oran agaasimihii guud wasaaradda arrimaha gudaha iyo wafdi la socday ayaa gobolka muddo 2 bilood joogay xildhibaanaa joogay arrimihii isbedelka dowladda dhexe ayaa hakad loo geliyey marka waxaan filayaa inay sii socon doonto haddii se waxaan leeyahay reer hiiraan iyagu ay la imaanayaan fikir kale oo ay isleeyihiin kaa waxbaa ka wanaagsan baa jira hadda iyagaa laga rabaa si dastuuriya inay baarlamaanka uga gadaan kadibna ay miiska soo saaraan marka golaha consulka la sameeyo odayaashu ay soo xulaan guddiga la sameeyo guddoomiye la sameeyo dabcan waa nidaamkii gobolka ayaa hagaagay waxaa jira marka dastuurka sidaad ku sheegtay in federaalka uu noqon karo 2 gobol maxay tahay qorshaha marka gobolka hiiraan gobolkee baa ugu dhow ama keligiis baa istaagaya ma gobol kale uu ku tiirsanayaa sidee loo xalinaya arrinkaasi waa haddana reer hiiraan bay u noqonaysaa waayo dastuurku wuxuu leeyahay 2 gobol oo iskood u heshiisay iyo wixii ka badan reer hiiraan waxaa u furan markii iyagu nidaam samaystaan gobolada kale ku xeeran oo iyaguna nidaam samaystay in ay wada hadlaan oo yiraahdaan ma 2 3 4 way isku darsoomi karaan wax dhib uu kama jiro gobolka hiiraan waxaa u furan oo kale inay yiraahdaan sida hadda gabadhii ay jamaadi ay maartay ka dhawaajinayeen gobolkani waa 8 gobol oo asalkaaga ka soo jeeda haddii reer hiiraan u gartaan inuu 2 gobol noqdo oo iyagu intay gobolka 2 ka dhigaan ka gadaan baarlamaanka nidaam noocaas federaalku hiiraan ku ekaado waa u bannaan tahay laakiin sharciga hadda dastuurka wuxuu leeyahay 2 gobol nidaam la hoosaas nidaamka ku dhisma oo iskood u heshiiya ayaa federaal noqonaya waa tahay habka federaalka waxaan u laabanayaa gadaal su-aal kalan xagga gadaale odayaalka soo dhisaya golaha deegaanka soo dhisaya waxay ku imaanayaan deegaan mise waxay ku imaanayaan habkii dowladda federaalka ay ku dhisanto qabaa'ilka odayaasha ay ku imaanayaan may arrintaas degmada waxay ku imaanaysaa degaan maahan bardu deegaanka dadka degan qabiil wey deegaanay ku imaanaysaa for example beledweyne waa caasimadda gobolka hiiraan tuulooyinka imise tuulay leedahay tuulooyinkaas yaa degan in ergooyinka noocaas lagu soo qaybsado oo la yiraahdo for example intaasoo tuulaha ku taala tuule hebel waxaa degan intaas ergada marka for example caasimadda waxay leedahay 150 qof ergaa isku imaanaysa halka degmada caadiga ay 100 iskugu imaanayaan 150 kaas for example magaalo madaxda gobolka isugu imaanaysaa tuulooyinka la tixgelinaya yaa tuulada degan ma lama rabo in wixii lagu beesgareeyo qabyaalad haddana in loo rogo degaan marka laga gudbana insha Allah waxaa la gaari doonaa in 1 man 1 vote la gaaro hal cod iyo hal qof laakiin hadda xaaladda ay ku dhisan tahay dowladda dhexe waxay ku timid habkii nidaamkii qabaa'ilada oo odayaal dhaqameedyadii kuma ay sameynayaan deegaan marka hab ka duwan miyaa idinku wax u sameynaysaa halka loo socdaa waxay tahay in qabyaalad lagu guuro qaran loo guuro wax burbur baa dhacay qarankana qabyaalad baa lagu dumiyey
in qabyaaladii qayb ka mida lagu dhiso oo xoogaa hore loo socdo tartiib tartiib looga baxo runtii waa barnaamij aada u fiican in marka hore qabyaalad lagu soo dhisay barnaamijkan markii laga soo shaqeynayeyna waad arkaysaa waxaa wasaaradii arrimaha gudaha u diyaarisay baarlamaanku isagu raacay madaxweynuhu dekreeto u soo raacay waxay tahay in qaran loo gudbo qabiil loo gudbo sidaa darteed waa in degaan la aado degaan laga tago beeli dad meesha way degan yihiin oo haddaba ergodan beelay ku imaanaysaa laakiin degaanay waxoogaa waxaad moodaa percentage fiican in degaan u aadayo degaanka marka laga baxo maxaa imaanaya insha allah 2016 marka 2016 in la gaari karo in qofku yiraahdo anu waxaan ahay magaalo hebelan ka soo jeedaa constituency waxaan anagu halkan ka niraahdo inuu degmo uu qofku ku faano oo halka qabyaalad ugu faan lahaa yiraahdo waxaan ahay degmadaas tuulo hebelan ka soo socdaa halkaasaan ka socdaa qofku inuu qabyaaladii ka guuro oo degaan iyo qaran u gudbo halkaas loo socdaa insha Allah aad ma santahay waa tahay waxa telefoonka ku jira qof kale oo aan jecelahay inuu nagala qayb qaato barnaamijka waa Cabdiraxiin oo ka soo hadlaya dalka Talyaaniga Cabdiraxiin maqlaysaa si fiican ku maqlaa walaal aye waa ku wada maqlaynaa aniga gudoomiye Cabdi Faarax maxaad ku dari lahayd fikirkaaga iyo su'aashaada insha Allah horta marka hore waan ku salaamay adiga iyo idaacadda iyo gudoomiyaha kulli waan islaam ma garan si fiican waxaan weydiinayaa horta aniga waxaan ahay nin Hiiraan oo waddanka Talyaaniga ku nool si fiican marka waxaan weydiinayaa gobolka Hiiraan waxay ugu dambeysay muddo adiga hadda 2 sano laga joogo waxaan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha gobolkana waa gobol barwaaqaysan miyaanan ahayn Ethiopia hadda la keenay in la joojiyo oo gobolada kale la aadiyo walaalaha hiil walaal oo hadda Djibouti loo daayo waan ognahay gobolka Ethiopia rafaadka gobolka geysatay waxaan jeclaan lahaa gudoomiyaheena sharafta leh Cabdi Faarax Laqayo in ciidamada Ethiopia laga joojiyo wadanka kale la aadiyo inuu waa la yaqaana oo irdaheeda la yaqaana marka waxaan jeclaan lahaa gudoomiyaha boqol asoo mahadsan in magaalada Ethiopia laga celiyo oo gobolada kale hadda shabaabka joogan loo diro magaalada Beledweyne hadda nabad ah waxaan jeclahay ciidamada hiil walaal iyo ma sha Allah oo hadda la dhisay oo dawladda Soomaaliya afta ciidan wax looga baahnaa badhisan yihiin in loo daayan jeclaan lahaa gudoomiyaha oo weydiin lahaa aad ma santahay Cabdiraxiin waxaan jeclaan lahaa TV-ga nagala xiriirto insha Allah Cabdiraxiin waa mahadsan tahay runtii qorshaha la dagaalanka shabaab ee waqtiga xaadirkan socdaayay waa mid qaran weey mid qaran waliba ma waa mid caalami waay sidaasi darteed caalamku wuxuu isla gartay in shabaab xididada loo saaro in dhibaatada Soomaaliya meeshay tahay runtii looga daba tago waayo caalamka sidaad ogtiin hadda wuxuu noqday waxa global waxa village yarab uu noqday oo wixii maanta dal dhibaato ka jira caalamka ay suurtagal tahay inay si sahal lan u gaarto caalamka kale sidaas darteed waqti xaadirkan Cabdiraxiinow arintani waa arin caalami waa arin qaran qabiil ciidan hebel xagga hagalo iyo ciidan hebel xagga hagalo ma taagne waxay taagan tahay nimankan shabaab ummadda runtii waxay u diideen nolol waxay u diideen maaragtay wax horumar ah dalkuna sidaa kuma sii jiri karo amni xumadiina waxay gaartay wadamada deriska iyo caalamka oo dhan sidaas darteed qorshuhu wuxuu yahay in al-shabaab dalka laga saaro ciidamada AMISOM waxay leeyihiin sharci adag oo qofka ciidankaas ka tirsan oo libiskaas wataay hadduu awal dhaqan kale lahaa ama ciidan kale oo iska fooda oo ahaa ama aan sidaasba u xadeysnayn ciidanka AMISOM markuu galo haddii isaga laftiisa dhab soo gaaro qofkaas iyo hadduu cid kale wax gaarsiiyo xisaabtan dhabaha jira u malayn maayo ciidanka Ethiopia way nala joogeen shabaab ayaga ka saaray gobolka 2 sano ka hor gobolka markaan nimid oo maamulahan meesha qabanay hal dhacdo oo dhibaha ka dhacday runtiina waa la ogaa arintaas ciidanka Ethiopia madaxdoodii iyo odayaasha dhaqanka arinta dhibka ay qosaysay si bini'aadanimo ah oo ciidannimo ah oo derisnimo ah oo fiican baa looga heshiiyey taasaana ugu dambeysay wax dhibahoo dhaca oo ay ciidanka Ethiopia ka geystaan muddo 9 bilooda magaalada Beledweyne hadda haddii AMISOM ku biireen waxaan is leenahay way ka sii wanaagsanaan doonaan dhaqankooda iyo
discibliinkooda iyo maamulkoodana wuxuu la mid noqon doonaa ciidamada kale amisom ee soomaaliya oo dhan jooga. marka wax gaar ah oo maaragtay loo beegsadaa runtii ma jiraan. waxaana leeyahay wax weyn ay kusoo korri doonaan xagga amniga. midda kale mandate bay leeyihiin ciidamadan, wakti go-an mandate, wakti go-an iyo shaqo go-an ayay dalka joogayaan. soomaaliya iyo etoobiya iyo kenya iyo jabuutina iyo wadamada dhanna inaan noqono dalal deris ah oo amni ku wada nool oo runtii wada shaqeeyana muhiim waaye. waxaan is leenahay marka ummadda somalia waxaan sheegayaa inaan la sharaysan ciidanka etoobiya ee ku biiray amisom. waxaan filayaa inay arrintaas waxweyn ka tiri doonto. waktigoodii shaqo markay dhamaystaanna iyagoo nabada iyo anagoo nabada aan deris iyo walaalnimo aan ku wada noolaan doono insha allah. waaya waxaa qadka ku jira mar kale qof kale oo nagala soo hadlaya london waa cabdirasaaq. cabdirasaaq ma maqlaysaa? baan ku maqlayaa. haye cabdirasaaq soo dhowo. waxaan doonayaa marka hore sababta waxaan salaamayaa guddoomiyaha laqanyo, adna gaar ahaan ku salaamayaa ay dhammaan idaacadda qaranka waa salaamayaa dhammaantiina. salaamla waa kaan qaadnala. okay, waxaan doonayaa inaan horta marka ugu horeysa waxaan saboot garanayaa oo aan aada u taageerayaa ciidamada etoobiyaanka soo galay hiiraan. waayo waayo waxaan ku taageerayaa in badan bay amisom gaar ahaan ciidamada jabuuti ka socdo in badan bay joogeen gobolka. welina waxaa jooga nimanka khawaarista oo joogo buula barde oo weli gobolkaba dhinac ka haysto. marka aniga waxaan isleeyahay waxa keliya oo nimanka ka saari karo waa etoobiyaanka iyo ahlusunna waljamaaca inay iskaashadaan nimanka khawaarista ay ka saaraan wadanka. waaya taas waa talo sidaan umaleynaya aada umahadsan tahay taladaada. kolley waxay ahayd talo sidaan qiyaasay waan usoo laabaneynaa. markaan usoo laabano hawsheenii kale daawadayaal waa barnaamij si toosa kaga qayb qaadan kartaan. waxaana la fadhiya intii hore waxaa laga yaaba dadka qaarkii inay dib kaga soo biireen shaashadda gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdi faarax laqanyo oo boqosho ku jooga magaalada london. waxaynu ka hadlaynay arrimaha guud ee ku saabsan gobolka hiiraan. dabcan waa gudoomiyihii gobol ugu horeeyey ee t v qaranka si toos usoo fadhiista magaalada london. qaybo muhiim ayaanu kasoo hadalna xagga amniga, nabadeynta iyo weliba xagga degmooyinka iyo nidaam sameynta gobolka hiiraan. waxaan soo laabanayna magaalada beledweyne. waa meesha uu degan yahay nidaamka dowliga oo aad adig madaxda ka tahay. xaaladda guud dabcan waxaa arrimaha bulshada ka shaqeeya oo nidaamka dowliga laga dareemaa dowladda hoose. hadda ma shaqeysaa hay-addaasi xaggii wadooyinkii nadaafadii? runtii dowladda hoose duqa magaalada iyo dowladda hoose magaalada beledweyne intaba way jiraan. runtii tabaryare ha jirto oo xag dhaqaale iyo xag amkaaniyaadka lagu shaqeeyo, laakiin way jirtaa in la shaqeeyo oo hadda wax laga bilaabay in arrimaha nadaafadda wax laga qabto oo kale. mar dhowna insha allah waxaan rabnaa inaan soo celino nidaamkii ahaa. waxaa ku badan magaalada beledweyne in dadku iska dhisto guryaha oo hadday noqon lahayd dhulka magaalada banaanka ama gudaha. arrintaa hadda marka waxaa socotay qorshe dowladda hoose ah in dadka guryaha dhisanaya in la ogaado dowladda hoose ay la socoto, in nadaafaddii wax laga qabto, in suuqyada dadku wax ku gataan oo nadaafadooda iyo haddii noqon lahayd qudaarta, hilibka, waxyaabaha dadka runtii caafimaadkooda wax u dhibaya in la bilaabo nadaafadoodii. in hay-ada anagoo la kaashanaynana mar dhow aan sameyno suuqyo bilicsan oo casriya oo dadka waxyaabaha dadku cuno ay ku iibsan karaan. hadda runtii waa aada u liitaan arrimahaasu. dowladda hoosena tabaryare ha jirto. waxyaabaha hadda aan qurba joogta kala hadlaya kamid ah reer hiiraan in waxyaabaha noocaas ay gacan ka geystaan. qalabkii looga shaqeyn lahaa nadaafadda sida gaadiidka iyo wixii lamida. runtii waxyaabaha aan hadda aan u jeedinayo caawan aan ku celinayo oo aan u dirayo dadka kasoo jeeda gobolka in ay wax ka qabtaan arrimaha bulshada oo ay kow ka tahay nadaafadda, waxbarashada, caafimaadka, wadooyinka.
waxyaabaha hadda ugu daran oo runtii anoo ka faa'iidaysanaya halkan ay tahay waddo 8 kilomitira oo airboortka hoostiisa ka baxda oo dhanka iyo waqooyi aada xilliga roobka oo aan filayna abril hadda waxa soo socda xilligii roobka waddadii caadiga janda kundisha lagu bixi jiray waddo ciidamaday noqotay ciidamada degay runtii laguma baxo waddada inkaa kaloo la maro webiga dhinaciisa xilliga roobka baabuur badan baa dhibaato kusoo gaartay ku qallibmay marka walaalaha amisom anagu markaan isla fiirinay amniga ciidanka anagoo ilaalinayna waddo aada u fiican oo bundakoobaad ka baxda oo toos u baxda waqooyi aado 8 kilomitir oo toosan ganacsatada reer Iran waa isku tageen waxay bilaabeen in waddadii la bixiyo waa la saarayba waddadii way baxsan tahay waddo 8 mitir oo ballaceedu yahay 8 kilomitir dhireedu yahay dhirkeedu yahay waddadaas waxay aad iyo aad wax uga tari doontaa dhaqdhaqaaqa gaadiidka siiba inta waqooyi aada baahi xoog lah ka jirta marka waxaan rabaa halkan inaan abiil uga soo jeediyo ama codsi waddadaas runtii ganacsatadii had ogaantay ilaa 2 kilomitir ayay marayeen oo caradii ku shubeen waxaa gacan weyn ka geystay walaalaha hiil walaal oo qaabka kaawada loo jibinayo iyo mashiinka jibinaya iyo wax alaale waxay u baahdeen markasta la garab taagan oo gacan siinayay waxaan is leeyahay marka waxaa dhiman kaalintii qurba joogta gobolku dhaqaale ku filan ma haysto waayo inta badan dhaqaale laga ururiyaa gobolka ma jiro waayo ganacsatadii inta badan waxay nagu xireen ama aan u jeedna inay culays ka saarto ay leeyihiin waa in la tagaa moogtahay buulo barda ama shaaba dalka laga saara marka waxaan usoo jeedin lahaa in qurba joogtu ay ka qayb qaadato in waddadaas sida u dhaqsiyaha badan loo dhammaystiro insha allah waddo jaayo waaye haddii laami laga dhigi karana mustaqbalka aada u fiicneen waxyaabaha ugu muhiimsan dadka qalbigooda ama niyaddooda soo celiya waxaa weeyaan samaynta waxyaabaha ay qabato dowladda hoose xagga wadooyinka magaalada dhexmara iyo bilicda iyo magaalada iyo qaadista qashinka oo aad leedahay dhibaato badan macnaha gawaarida qashinka qaada iyo dadka ka shaqeeya ama wadadii nadiifiya ama dhisa haddii aysan nidaamkii meesha jira dhaqaaluhu aada u yaryahay macquul ma tahay ama ma la isku dayi karaa in laga dhigo kambaniyo ama gaar ah oo private shaqada la siiyo iyagoo ay qabtaan si waa suurtagal arrintaas laakiin dadku badanaa wuxuu jecel yahay wax bilowday oo socda inay arkaan ay dhammaystiraan laakiin qofka initiative inuu la yimaado oo wax cusub bilaabo waxoogaa inay ku adagtaad muddaa marka weli maanaan arag dadahaya waxaan rabnaa inaan anagu waxaan haysanaa qalabkii iyo awooddii lagu qabanaya shaqadaane annaga hana la siiyo cid kale maalgelisay runtii weli maanaan arag haddii taa la hela lafteedu waa suurtagal midda kale kolleyba xagga wadooyinka iyo horumarka gobolka wax badan baan rajaynaynaa sanadkan insha allah cusub siaad ogtihiin hay-ad la yiraahdo nice oo norwegianka gobolada dalalka isku tagtay waxay noo ballan qaadeen 3 bilood soo socota sanadka cusub inay dhisayaan wado 1 kilomitir iyo bar 1.6 kilomitir oo xarunta gobolka bilaabanayso tijaaba ilaa buunda koobaad waxay cabireen oo cabir ku dhan yahay ilaa janda kundisha ilaa burjada ciinta waa wadada halbowlaha oo magaala dhex marta oo janda kundisha ilaa burjada ciinta ayay cabireen cabirkii waa haystaan laakiin waxay rabaan inay tijaab ahaan u sameeyaan 1 kilomitir iyo barkaas ku dhowaadkaas oo ay tijaabiyaan nalalkii qoraxdana solar systemkiina ay ku xiraan kadibna la sii wado oo markii la ogaado haddee hay-ad waliba waxay fiirisaa marka hore war dadkani dad wax loo qaban kara ma yihiin ilaan waxaa laga yaabaa markaa tiraa meel waxbaan ka qabanaya in hay-adihii laftoodii loo warxumeeyo layihaha meesha amni maahan iyo maamulka ma jiro iyo markaa bal tijaabo inay sameeyaan kadibna insha allah ay dhamaystiraan waxaa kaloo jira ay sameynayaan ayagana oo aan siixoodii aan kala qaadanay kiliga guufaale waraaboole leh kiliga waraaboole waxuu ku aadan yahay dhanka galbeed kili ka baxa waay xilliga biyo baxado timaada waxa loogu talagalay in lagu neefiyo oo biyu ka baxaan ilaa 3 kilomitir ayaa iyaguna la qodaya oo la diyaarinayaa ilaa dad 700 oo qof ka badan ayaa shaqo ka helaya oo ka shaqeynaya ilaa 3 kilomitir marka hay-adan nice ayaa sameynaysa Norway waxaa kaloo jiro wasaaradda maaliyadda iyaduna way noo yimaadeen iyo wasaaradda gudaha arrimaha gudaha wafdi ka socda runtii waxay la kulmeen dadka taladu ka go-do reer hiiraan
waxay weydiiyeen waxaan idhaahaynaa qorshe lacag ay bixisay dowladda Norway oo aan rabno inaan mashaariic idinkugu samayno. lacagtaas wax 1 milyan xoogaa ka yar waaye. maxaa rabtaa inaad ku samaysataan? waxgaradka arrimaha bulshada, ganacsatada, dadkaasaa maalin workshop loo qabtay, ayagaa go-aamiyey mashaariicda mudnaanta koowaad leh ee lacagtaa la gelinayo. runtii waxay go-aamiyeen kow in xarunta gobolka oo baaba'san la dhiso, xarunta degmada in la dhiso, hoolalkeedii shirarka, motor maaragtay generator backup oo fiican, ceel biyo, intaa wixii ka soo hara in suuqyada aan hadda aan ka hadlayay afarta xaafadood ee magaalada ku yaala in suuqyada ayagana wax looga qabto. intaasay go-aamiyeen. barnaamijkaasna waa la qaaday. aqoon-yahano uu hogaaminaya walaalkan cali xaaji ayaa waday. barnaamijkaasna waxaan rajeynaynaa inuu durbaba bilowdo bishan dhammaadkeeda. 2-3 bilood gudahoodna la arko insha allah wadadiyo laami solar leh, xaruntii gobolka iyo degmada oo dhisan, keligii waraabalo haddii biyuhu yimaadaan insha allah aan isaga weecino. marka horumarkaasna insha allah waa sugaynaa. waqtigu aad u yar qofka ugu dambeeya aan isleenahay barnaamijkooda ogala qayb qaadan karaa ayaan soo qabanaya oo qadka ku jira waa Sacdiya oo joogta London. Sacdiya ma maqlaysaa? السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله. أبي وين سلامي عبد فرح. سودو سعدية هاي. والله waxaan rabay inaan Cabdi Faarax wax yar weydiiyo maadaama uu soo gobolka ka yahay maxay tahay gudoomiyihii gobolka. waxaan rabay inaan weydiiyo xasuuqii ayaantii dhow ka dhacay gobolka Hiiraan oo u geysteen ciidamada dawladda dadka masaakiinta oo beeraha leh oo maxay tahay meeshii joogay muxuu ka qabaa, maxaase magdhow laga bixiyey, maxaase loo qabta dadkii la barakiciyey oo xoogga dawladda lagu barakiciyey, maxaa loo samaynayaa haddaan maxay tahay adduunka lagu xisaabin in aakhiro la isxisaabinayo miyaysan ogeyn madaxda Soomaaliya. waaya Sacdiya insha allah waxaan rajeynayaa Sacdiya walaal waa mahadsan tahay. runtaa waaye qof kasta oo caalamkan jooga oo muslima haddii aan adduunkan la xisaabin aakhira la xisaabi doona waa kugu raacsanahay. waxaan rabaa walaal inaan ku saxo ciidamo dowlo oo xasuuq geystay horta ma jiraan. arrintaasna waxaan maleynayaa London aad joogtaa war xumaa ku soo gaaray. arrintaas horta adiga laftaada alla uga baq. halkaa waxaa jooga ciidamada AMISOM, waxaa jooga ciidamada Ethiopia, waxaa jooga xafiisyo international community ah oo halkaa degan oo jooga oo caalamka warka u dhiiba. waxaana soo booqday oo noo yimiday wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. waxaa noo yimiday wasiiro iyo xildhibaano ka socda asal ahaanna weliba ka soo jeeda deegaanadaas oo xamar ka yimiday oo na soo booqday oo goobtii tegey oo wixii xog jiray ururiyey. marka walaal Sacdi horta waxaan kuu sheegayaa caalamkuna uu og yahay alla hortiis inaanu jirin qof ciidan ah ama mas-uul ah oo qayb ka qaatay dhibkii foosha xumaay ee ka dhacay Kabxanley. markaan taa kuu xaqiijiyo waxaa jiray dhibkaa isagaa uu dhacay qabaa'ilo dagaalay oo walaalaha weligood deganaa ayay ka dhexdhaceen. arrintaas hadda meel fiican ay maraysaa. runtii waxgarad badanaa u kacay in nabadeyntii laga shaqeeyo oo dadkii laysku keeno waa bilownay. Kabxanley iyo Deefow meesha u dhexaysa aniga lafteeda 2 habeen meel banaana jiifay dadkii isku keenay. walaalaha jajeelo uu hogaaminayo wabargeedi iyo odayaasha la shaqeeya oo kaashanaya dhammaan waxgaradka meesha dowladduna ku ogeyd waa iskaashanay. hay-adihii samafalkana way bilaabeen shaqadoodii. dadkiina isku keenidii hore waa samaynay. dad weligood haddaan warsay taariikhda ilaa 80 sano ka badan ayay halkaa wada deganaayeen. runtii waa ka xunnahay wax meesha ka dhacay in tuuladiina wixii ka dhisnaa wax ka fiican laga dhiso, dadkii caadi usoo degaan. tirada meesha ku dhimatay 8 qof ayaa meesha ku dhimatay oo labada qolood dagaalay ahayd. webi baa wax lagu guray iyo dadaa la barakiciyey iyo barako runtii waa jiray oo waa ka xunnahay. laakiin waxyaabaha idaacadaha ka baxay Sacdiyey oo dadka beer la xawiyey waa wax ka jira ma laha. runtii waa ka xunnahay. dad walaalaha waay maantana inta badan waa isdhex maraan. heshiis fiican baa socda. degmadii dib baa loo dhisi doonaa insha allah tuuladii iyo intii ka fiican. ciidamadeena iyo ciidamada AMISOM hiil walaal iyo kuwa Ethiopiana aagoo dhan waa la kormeeraa.
waxgaradkii oo dhan baa ka shaqeynaya. waxaan rajeynaynaa kabxanley oo sidii hore ka fiican, dadkeedii ku soo noqday, dadkii dhintayna laga wada hadlo, wixii dhiiga sidii loo kala qaadi jiray loo kala qaato, dadkii walaalahay oo deriska ahayna iyagoo sidoodii walaalo ah oo shaydaankii iyo siyaasaddii iyo federaalismkii iyo wixii qashinkii la dhexgeliyey in laga saaro oo iyagoo degaana oo walaalo ah inaan la shaqeyno oo aan la shaqeyno wabarka iyo wabargeedii iyo odayaasha gogashii ugu dambeynteed in la dhigo, kadibna ummadda ay heshiiso. runtii saasaan ku tala jirnaa. dadka qurbaha joogo la wareeriyina waxaan leeyahay war xumahayda ka baxo, insha allah gobolkii imaada, kabxanley imaada, waa idinku soo dhaweyneynaa insha allah. waqtigu aada gabagabo ah badane gudoomiye, waxaad ka timid gobolkii hiiraan degmadii beledweyne oo dad badan wadnahooda ku taala, aqoon-yahano iyo dad kala duwan oo qabaa'ilo kala duwana. horta inta badan dadku ma maqlaan gudoomiyihii degmada howlwadaag ama kooshin ama buundaweyn. marka waxaan rabnaa, waxaa la yihahdaa mar walba waxaan maqnaa gudoomiyaha degmada gobolka banaadir degmooyin ku yaalla howlo badan laga qabtay. marka waxaa la yihahdaa waagii hore waxaa la oran jiray degmadaas waa kacaan, macnaha degmada ugu howl badan. marka degmada hadda ugu howlba ugu kacaansan macnaha beledweyne. ma runtii beledweyne saad ogtihiin waa hal degmo oo degmooyin ma kala lahaa. waa rajeynayna hadda way weynaatay oo laakiin sidaan ugu nimid xaafada 4 xaafadood baa jirta beledweyne oo runtii u qalanta barbols ahaan aan rabnaa mar inaan soo jeedino inay 4 degmo noqoto. maxaa jira waa magaalada hadda aada u weynaatay oo runtii aada u fiday. qofkii raba hadda google oo geli karaa, waa fiiri karaa. beledweyne runtii aada u weynaatay xaafadaha inta, laakiin marka hadda aanaan degmo dhino xaafada aan dhihinna runtii xaafaduhu aada u shaqeeyaan. waxaana socdaa oo runtii tartan baa dhacay oo kale haddaan ku sheega cajiib ahaa oo 8 kooxood oo kubadda cagta ku tartamay oo walaalaha heel walaal siiba heel walaal kabiyaan dhihine madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu fangareeyey micnihii qalabkii isboortigii iyo banooniyaashii u keenay. marka lama galaya lagu qabtay cayaartaas. 4 xaafadood 8 waaxood baa ka soo baxay, 8 kooxood baa ka timid. waxaa ka soo qayb galay safiiro, saraakiil. runtii koobkiina mudduu socday, koobkii baa la qaaday. cayaarta iyadoo duuban haddaad arki lahayd waxaad dhihi lahayd tirow ma cayaarihii berigii yaa qaaday koobka marka. koobkii xaafadda kooshinaa qaaday oo xaafadda anuu deganahay ah. waa gartay marka insha allah waxaan rajeynaynaa insha allah sida kubadda loogu tartamay nadaafadda iyo howlihii kale. ugu dambeyntii marka dadkii reer hiiraan oo meel kasta jooga ku daawanaya baaqaad u gudbinayso gobolka ku aadan muxuu yahay? bismi illaahi runtii s n t v iyo walaalkiin waadi ka abaal celinaya arrintan. arrinta baaqa keliya aan jeedinaya waxay tahay gobolka hiiraan siaad ogtihiin waa gobol qadiimi ah oo 8 gobol ka soo jeeday. reer hiiraan waxaa u furan inay u soo jeestaan cid waliba gobolkeeda iyadaa dhisatay. dowladda dhexe waa aaminsanahay wax hagarigo ma jiraan. dowladda dhaqaale laga sugo iyo moogtahay runtii in ma jiri karo. new dealka waa jirtay haddii la helo barnaamijka asiga ah inay wax naga soo gaaraan. laakiin reer hiiraan waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto kaamarada. dalkii waa nabad, inta dhammanna waa la dhammaystiri. in ay ka shaqeeyaan arrimaha bulshada, waxyaabaha kaga aadan arrimaha bulshada inay wax ka qabtaan. 2 iyaga laftooda inay yimaadaan oo ay gobolkii maalgashadaan sida warshadaha yaryar oo kale ee biyaha, qudaarta hiiraan ka soo baxda ama waxyaabaha ka soo baxa beeraha hiiraan waxaa loo iibgeeyaa ilaa hargeysa iyo ilaa beledweyne inta ka dhexeysa waxaa laga cunaa qudaarta ka soo baxda gobolka hiiraan. waxaa kaloo laga qaadaa xoolo aada u badan oo lo iyo ari iyo geel iyo isugu jira oo carabta iyo meelo badan loo iibgeeya. xoolaha ugu badan soomaaliya ka dhoofa siiba ariga waxa uu ka baxaa gobolka hiiraan. sidaa darteed waxaan dhihi lahaa haddii noqon lahayd maalgashi ganacsi ayi nooc in ay ku soo dhowaadaan gobolkooda horumariyaan isla markaana ay wax ka qabtaan arrimaha ijtimaaciga sida wadooyinka, arrimaha caafimaadka, waxbarashada. runtiina waa arrimo looga fadhiyo qurbo joogta gobolka hiiraan dhammaan meel kastoo joogaan aada u adkeynayaa inay arrintaa wax ka qabtaan.
haddii la isdhihi jiray gobernatore ama guddoomiye gobol ama guddiga meeshaa ka jiraay wixii loo dhiibaaramay jeebka gashtaan waxaan u xaqiijinaynaa inaan wixii nala kusoo hagaajiyo ay gacan ammaana ku jiraan mashruucii loogu talagalay lagu qaban doono balse waxaan kasii jeclaa lahayn inaan annaga waxba nala kusoo hagaajin oo qurbo joogtu ay samaystaan guddi gudaha joogo arrimaha bulshada ururkii dhalinyarada jira kii haweenkaa soo socda haweenkiina hadda way shaqeeyaan iyaguna ururkooda hadda la samaynayaa waxaa jooga ganacsatadabaa jirta in qurbo joogtu ay samaystaan guddi iyaga matala oo arrimaha bulshada ka shaqeeya halkaas lacagaha uga shubaan wadooyinkii dhisaan isbitaalka runtii gobolka waa gobol isbitaal aada u weyn waxaa jooga 3 hay-adood oo 2 ay tahay aan dhihi karo waa international NGO iyo mid local ah 3duba runtii wixii karaankooda way qabtaan laakiin kuma filna waxay u baahan yihiin in la helo isbitaalka loo helo qalab iyo daawo intaba waxaan rajayn lahaa markaa isbitaalkaas in sumcaddu lahaa dhismaha uu fiican yahay laakiin hoostu ka maran yahay in isbitaalka uu noqdo isbitaalkii laga soo aadi jiray meelahan isla ogeyn wadooyinka in la dhiso oo wixiina loo dhisa maan anaga waxaan ku darsan karno in moogtahay degmooyinkii wax oo dhan ilaa hadda gobolka insha Allah 5 degmo xor bay noqonayaan in wadooyinka u dhaxeeyo lana la dhiso reer Hiiraan waxaan leeyahay gobolkii ciidna uma maqna ceelna uma qodna insha Allah waxaan filayaa inay dhageysanayaan dad badan oo gobolka Hiiraan ka soo jeeda aqoon-yahano saraakiil iyo culimo lehba waxa aan aad ugu faraxsanahay inaan maanta halkan uu nagu yimaado gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Faarax Laqanyo oo barnaamijka nagala qayb qaato waxaana ugu mahadcelinaynaa aad u mahadsantahay gudoomiyaha mahadsantahay dhammaan dadka reer Hiiraan dabcan waxa soo socda sida gudoomiyaha noo sheegay doorashooyin la rabo in lagu dhiso golaha deegaanka iyo dhammaan xubnihii maamulka gobolka Hiiraan waxaana uu ka dhor sugayaa in gobolku ay ka soo qayb galaan dhammaan dadka ehelku ah gobolka Hiiraan ka soo jeeda asalkoodii waxaana barnaamijkan aan ugu talagalnay inaan xog dhaba ku helno ee gobolka Hiiraan ku saabsan dabcan sida aan hore u sheegay degmada ama xaafadaha ku yaala magaalada Beledweyne oo aan degmo iri dabcan waxay u egtahay xagga afka inuu iga xaday xaafadahaas Kooshin Bulxaabley Bundaweyn Hulwadaag iyo Xaawataako iyo kuwa kale oo fara badan waxaan leeyahay in kastoo anigu aan taageersanahay xaafadaadii sheegtay Kooshin oo koobka qaaday aad mahadsantihiin oo aan taageersanahay Kooshin ex Bulxaabley laakiin intaan ku kulmayno barnaamijkan lamid ah waa barnaamijkii falanqaynta aan ku soo qaadnay arrimaha Soomaaliya quseeya aad mahadsantihiin daawanaysa waxaan ka raali gelinayaa dad badan oo isku day inay telefoonka nagala qayb qaataan oo u suurtagal weyday dadka oo aad u fara badan waxaan soo qaadnay intii ugu macquulsan hadii Abraal ka noqdo aad ay mahadsantihiin raali ka noqdo hadii aad soo gaaro waysan stuudiyaha waxa barnaamijkii soo jeedinay anigu Cabdirasaaq Socoto sidoo kale xagga farsamada waa Yuusuf Garabi iyo Cabdi Qaadir intii ku kulmayno barnaamijka mid lamid ah aniga iyo gudoomiyaha waxaan ka tagnaa sida iyo nabadgelyo